بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Miska Abshir Muuse oo kamid ah ardaydii ka qalin jabisay Somali Medical Training Center waxaan ka bartay midwifery Prolonged labor ayaa ka hadli doona Prolonged labor waa foolshi oo hooyada ku daba dheeraata foolshi oo hooyada ku daba dheeraata waxa la dhihi karaa hooyada uurka waa inay foolato 24 saacadood iyo wixii ka badan hooyada dhashoydana inay 16 saacadood iyo wixii ka badan ay foolato ayaa loo yaqaanaa Prolonged labor ama foolshi oo daba dheeraata foolshi oo daba dheeraata waxyaabaha loo sameeyo waxa ka mid ah 3BS ta bida ugu horeysa waa power inay hooyada ay awood u yeelan weyso contraction ku filan inuu ninkeeda heli waayo ka bacdina ay hooyadii nafaqo darro la xiriirta ama awood darro la xiriirta jirkeeda darteed ay hooyadaas u dhali weyso ayadoo cunuga iyo waxyaabaheeda kale ay soo ka qaldaneen sidoo kale bida labaad waa passage waa meesha cunuga soo mari lahaa belfika hooyada kamida inuu cunuga awood u yeelan waayo inuu ku soo dago belfika hooyada oo belfigii iyo miskihii uu soo mari lahaa ay ku noqdaan meel cariiri oo yar bida saddexaad waa passenger in cunugii waa wax la xiriira ilmaha in cunugii uu noqdo cunug saaid u ceylan oo hooyada ay dhali weyso sidoo kale inuu abnormality cunugii ku dhaco oo kala kamid ah uu cunugii abnormality noqdo inuu si qaldan isku soo diyaariyo cunugii sida inuu garabka soo dhigto oo kale baa kamid ah waxaa jirta laba hab oo foosh markay daba dheeraato loo manage garan karo labada hab waxaa kamid ah midda ugu badan oo lagu manage gareeyo foosh daba dheeraata waa cesarean section in hooyada qalin loo sameeyo midda labaadna waa induction in hooyadii fool loo abuuro waxa keeni kara sababo waa hooyada inay sababahaas ku imaadaan ka bacdina hooyadii oo nabar qabanin oo foolanin in hooyadii la fooliyo sababahaasna waxaa kamid ah post-mature pregnancy inuu dhaco in hooyadii cunugeeda 42 isbuuc uu uurkeeda gaaro hooyadii oo wali fool qabanin sidoo kale waxaa kamid ah hooyada inay tahay gestational hypertension in hooyada ay uurka ku qaado dhiikar sidoo kale hooyada inay tahay gestational diabetic in hooyada ay uurka ku qaado sonkorow sidoo kale waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa kamid ah intrauterine fetal death inuu cunugii caloosha ku dhinto waxyaabaha kale oo keeni kara in foosh hooyada loo abuuro waxaa kamid ah oligohydramnios sidoo kale waxaa kamid ah premature rupture of membrane inuu xuubka cunuga ku dahaarnaa uu dilaaco soo waqtigiisa la gaarin sidoo kale waxaa kamid ah oligohydramnios oo in biyihii cunuga uu ku dabaalnaa ay yaraadaan